Soomaaliya maxaa ka xiga inay ku guuleysato dacwadda badda ee maxkamadda ICJ iyadoo la raacayo qabanqaabada iyo abaabulka dacwadda badda ee Soomaaliya kala dhexeysa Kenya ee ay go'aamisay in la dhageysto maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano ICJ. Soomaaliya waxay heli doontaa 3 saacadood oo shalay ah 15 Maarso 2021 iyo saacad iyo bar oo maanta oo Talaado ah 26 Maarso 2021 si ay u soo bandhigto doodeeda afka ah sida ku cad warqadda diiwaan xayaha maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee la qoray 11 Maarso 2021. Soomaaliya waxay fursad u heli doontaa 10 subaxnimo ee maalinka Isniinta ee 22 Maarso 2021 inay u soo gudbiso maxkamadda faallooyin qoraal ah oo ku saabsan agabka dacwadda badda ee ay soo gudbisay Kenya. Inta lagu guda jiro gudbinta faallooyinka qoraalka ee dacwadda badda maalinka Isniinta ee 22 Maarso 2021, Soomaaliya waxaa laga yaabaa haddii ay u baahato inay ka faa'iideysato muddo kordhin gaaban oo dacwadda ah wixii ka dambeeya 6 maqribnimo. Fursadda ay u haysato Soomaaliya si ay ugu guuleysato dacwadda badda in Soomaaliya ay hesho fursad ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ugu gudbiso faallooyin qoraal ah oo ay ku beeninayso sheegashada Kenya ee badda Soomaaliya 10 subaxnimo ee maalinta Isniinta ee 22 Maarso 2021 ayaa ah fursad dahabi ah. Ogow, fursaddan oo kale oo ay Kenya xaq u lahayd inay hesho waa ay dayacday sababtoo ah Kenya iyada ayaa go'aansatay inaysan dacwadda ka qayb gelin. Sidaa daraaddeed ma haysato Kenya fursad ay hadda iyo wixii ka dambeeya ku gudbin karto faallo qoraal ah ama hadal afka ah oo ay ku beeninayso agabka dacwadda badda ee Soomaaliya ay u gudbisay. Tan ayaa ka dhigan in Soomaaliya ay fursad u haysato inay burburiso dhammaan qoraallada, caddeemaha, xigashooyinka, sawirrada xadka badda iyo dhulka ay Kenya sheegatay iyo wax alla oo ku saleysan doodda Kenya si ay sare ugu qaadi karto fursad ah inay garsoorayaasha maxkamadda ay ka dhaadhiciso doodeeda. Marka Soomaaliya ay u gudbinayso faallooyinka qoran oo ka dhan ah dhammaan agabka dacwadda badda ee ay u gudbisay Kenya, Soomaaliya waxay haysataa 2 fursadood. Kow, inaysan jirin cid la doodaysa oo burburin karta faallooyinkeeda qoraalka ee ka dhanka ah agabka dacwadda ee ay la timid, inay u gudbiso qareenadeeda caddeeno qoraal ah oo taageeraya doodeeda. Ogow, markani waxaa garsoorayaasha maxkamadda ay isbarbardhigayaan ayaa ah agab dacwo oo cidda la timid Kenya aysan goobjoog ka ahayn, tii oo ay dheer tahay in aan la cusboonaysiinaynin inta dacwadda ay socotay, iyo faallooyin qoraal ah oo ay Soomaaliya duldhigtay dhammaan agabka dacwadda badda ee Kenya si ay u beeniso, iyo Soomaaliya oo dood afka ah iyo mid qoraal ah baa la shirtagtay. Maqnaanshiyaha Kenya ee ah inay lumisay fursadda ah in ay xaq u lahayd sida Soomaaliya oo kale inay u gudbiso faallooyin qoraal ah oo ay ku naqdinayso agabka dacwadda ee Soomaaliya ayaa fursad weyn siinaysa Soomaaliya si ay ugu heli karto inay guul ka gaarto dacwadda badda. In Soomaaliya ay ku guuleysato dacwadda badda ee kala dhexeysa Kenya waxay ugu xiran tahay sida ay kooxda ku matalaysa Soomaaliya dacwadda badda xoogga u saaraan inay la yimaadaan dood maangal ah iyo caddeemo ay ku beeninayaan agabka dacwadda badda ee ay u gudbisay Kenya. Sababta arrinkani ay muhiim u tahay ayaa ah in faallooyinka qoran ay ka saameyn badan yihiin 4 saac iyo barka ay Soomaaliya gudbinayso dood jeedinteeda dacwadda badda ee afka ah. Haddii kooxda Soomaaliya ku matalaysa dacwadda badda ay ahmiyad weyn siiyaan shaqada faallooyinka qoraalka ah ee lagu naqdinayo agabka dacwadda badda ee Kenya, waxaa sare u kacaya saameynta ay ku yeelanayaan go'aan qaadashada garsoorayaasha maxkamadda. Marka Soomaaliya waxa ay helaysaa fursad xaggeeda loo ridi karo go'aanka dacwadda badda. Kuma dhisna dacwadda badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya hab la dhihi karo dal hebel ayaa ku guuleysanaya dacwaddani marka loo eegayo qawaaniinta iyo xeerarka badaha, laakiin marka loo eego dacwadaha la midka ah tan hadda u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya ee ay qaaday maxkamadda ICJ, waxay u badan tahay in Soomaaliya ay hesho gacanta sare. 2 arrin midkood ayaana taageeraya arrinkaas oo ay tahay in ay ku dhammaato dacwaddani go'aan qaadashadeeda. Tan koowaad waa in la saadaalin karin guusha Soomaaliya ee dacwaddani markasta sababtoo ah habdhaqanka Kenya oo muujinaya cabsi weyn oo ka haysay inay la dacwoodo Soomaaliya. Marka aan sidaa leenahay, Kenya waxa ay ku dooday in Soomaaliya ay badda ka heshiisay, tii oo ay Soomaaliya la taagan tahay ICJ inaysan waxba kala heshiinin dacwadda badda. Kaba daran ee Kenya waxa ay u sheegtay maxkamadda ICJ inaysan awood u lahayn inay dacwaddani qabato, dhageysato, go'aan ka soo saarto. Markii maxkamadda ay u cadaatay in Kenya ay dacwadda awood u lahayn
inay qaado Kenya. Waxa ay 2 mar codsatay in dacwadda dib loo dhigo. Hadda maxkamadda waxa ay Kenya ka diiday in markii saddexaad codsigeeda dib loo dhigo dhageysiga dacwadda. Sidaa daraaddeed, Kenya waxa ay go'aansatay in guuldarro ay xaqiijisay inay la kulmi doonto. tan Kenya waxa ay ula jeedaa inay raadiso waddo kale oo ay ku doodo mar kale inaysan ogoleen go'aanka ka soo baxa maxkamadda haddii ayada uusan siin guusha. Marka Kenya ay sidaa yeelayso, waxa ay ku qamaaraysaa nafteeda sababtoo ah waxay og tahay in go'aanka maxkamadda uusan dullo ku yahay inay aqbasho. Laakiin hadda waa ay ismadadaalinaysaa sababtoo ah go'aanka ka soo baxa ICJ ma lahan meel ka dambeysa oo lala aado. Tan labaad, Soomaaliya ayaa haysataa fursad kale oo ah in dacwadda badda oo noocan oo kala ay ku wada guulaysteen dalalka lahaa ama qabay dooda Soomaaliya oo kala. Ma ogi haddii markaan ay maxkamadda ICJ wax ku go'aamin doonto si ka duwan sidii dacwadihii la midka ahaa tan Kenya iyo Soomaaliya. Laakiin iyada oo fursadahani oo dhan ay jiraan, waa in aysan Soomaaliya isdhigan oo dadaal wadajir ah la sameeyo. Dadaalada oo ay ka mid tahay in qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed uu sameeyo wax alla iyo waxa uu karo oo ku taageerayo in labin laga soo hoya dacwadda badda. Kii awooda duco keliya waa inuu sidaas sameeyaa, uu u duceeyaa dadka dacwadda nagu matalaya in Allah uu haleeshiiyo qodobada sahlaya in Soomaaliya ay ku guulaysato dacwadda badda. Midkii aqoon u leh dacwaddan noocan oo kala waa inuu ku kaabaa aqoontaas. Kii faalo ka bixinaya waa in uu ka bixiyaa dacwaddani inta ay socoto faalo aan niyadda ka jebinaynin ummadda Soomaaliyeed ee shaki laga geliyay wax walba oo ku saabsan dalkooda iyo noloshooda. Warbixintani waxaa diyaariyay Abukaati Cabdullaahi Faarax Barre, waxaana idiin soo jeedinayay aniga oo ah Axmed Cabdullaahi Cumar Talyaani.